nimanka dhulbahanta ilma adeerayaal hadaa wax noqonaysaan anagu idima daba joogno haddaydan wax noqonayna anagu idima faragelinayno ismada iyo uqaasha iyo dadka reer Khaatumo waxaan leeyahay aamuskiinu yuu soo dadajin dagaal beeleed oo warsangaliya dhulbahanta ka dhex abuurtaan siyaasiyiinta iyadu waa garbarato maalinba meeshii dabka baxan taaganahay dhulkan deegaankan iyo gobolkan Sanaag waxa halkaas soo gaarsiiyay oo sharafkiisa iyo qiimkiisa ilaaliyay waa isin iyo nabadoon iyo oday Soomaaliland 30 sano sheeganaysa dhul nagama aadin meesha ay walaalaheen dhulkoodii qabsadeen oo ka qaateen oo 2023 intaas oo qof in la soo celiyo dhulkii naftoodu ay ku baxday annaga gobolkan Sanaag siyaasi boorso wata Soomaaliland waa naga aadin laakiin dhul nagama aadin waxa intaas mahadeeda iska leh annaga maahan waa odayaasha iyo isimada oo hadeerna intii timi warcad siiyay baran markii qolyahaas yimaadeen waxa lagu yiri nimanka ka timaadeen soo iyagu wax ma rabaan annaga gawaarina la saari maayo iyagu intay yimaadaan oo gawaari soo raacaan warsangeli ha u yimaadeen waxa weydiisteen marka waa ka tashaneynaa dhulbahanta inta ilaahay ma soluusin wadada ugu fiican ay soo qaadi lahaayeen beed warsangelina u yimaadaan oo dhahan tolow wadada ugu fiican ay soo qaadi lahaayeen baa ahaayeen run ahaantii anu marka arko intaas inaysan marina waxa ii muuqata warsangeli inaysan rabine cid ay warqad ku saxiixdaan inay rabaan dhul ay warqad ku saxiixdaan inay rabaan waxaan rabaa idinka la idin warrami maayo oo idinka noo warramay oo annagii idinka idin nimi idinka najahayay idinka noo warramay waxaan rabaa inaan u sheego nimanka dhulbahanta ilma adeerayaal hadaa wax noqonaysaan anagu idima daba joogno haddaydan wax noqonayna anagu idima faragelinayno ismada iyo uqaasha iyo dadka reer Khaatumo waxaan leeyahay aamuskiinu yuu soo dadajin dagaal beeleed oo warsangaliya dhulbahanta ka dhex abuurtaan yuu soo dadajin wiilasha geeljirayaasha inay iska kambirayaan warsangali taariikh uu leeyahay magac uu leeyahay dad meel loogu hagaago weeye yuu soo dadajin wiilasha geeljirayaasha inay iska kambirayaan warsangali taariikh uu leeyahay magac uu leeyahay dad meel loogu hagaago weeye nimanka dhulbahanta ilma adeerayaal hadaa wax noqonaysaan anagu idima daba joogno haddaydan wax noqonayna anagu idima faragelinayno ismada iyo uqaasha iyo dadka reer Khaatumo waxaan leeyahay aamuskiinu yuu soo dadajin dagaal beeleed oo warsangaliya dhulbahanta ka dhex abuurtaan siyaasiyiinta iyadu waa garbarato maalinba meeshii dabka baxan taaganahay dhulkan